saaxiib waa kelmad aad u qurux badan. Dhammaantayna waan jecelnahay, waana u baahannahay. Waxaa laga yaabaa in ay kala duwan tahay ulajeedada saaxiibada noloshayna ku soo biira. Waayo waxaa jira dad aan fahansanayn macnaha dhabta ah ee saaxiibtinimada. Laakiin waxaan ka hadlayaa saaxiibka dhabta kuu jecel. Wuxuu kuu jecel yahay Ilaahay dartiisa. Maahan inuu dangaarkaa leeyahay, balse wuxuu arkaa wanaaggaaga. Wuu ku jecel yahay sababtoo ah wuxuu rabaa in uu kuu noqdo saaxiibka wanaagga kugu kaalmeeya. Wuxuu kugu boorinayaa khayrka, wuxuuna doonayaa in uu khayrka kugula saaxiibo. Hadduu wanaag kugu arko, wuu ku dhiirigelinayaa. Hadduu gaf kugu arkana, wuu ku naseexaynayaa. Wuxuuna ku tusinayaa waddada saxda ah, weliba sida ugu fiican. Saaxiibkaygiiyow, waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad noloshayda ka mid tahay. Ilaahayow adaa mahad leh, waayo waxaad nagu arsaaqday saaxiibo qurxoon oo adiga dartaa noo jecel, annagana dartaa aan u jecelnahay. Ilaahayow nagula kulmi jannooyinkaaga naciimka ah.